ducaanku xambaarinee xilka dadku ku igmaday intaad xagal daac ka dhowrtaan xujiya midnima macaan maanta waxaa noo qabsoomay shirweynaha degdega ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida taasoo ku falanqeeyay midowga xisbiga cusub si wada jir ee u dhisanayaan asxaabta loo yaqaano EPRDF iyo bahwadaagta deegaanada kala duwan soo hogaamiyay in badan arrin xilli badan soo taagnaa bay 20 sano in ka badan baa arrintaasi soo socotay waxa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida laga bilaabo xilligii la asaasay annagoo bahwadaag laha EPRDF su'aalo kala duwan odayaasheedii aqaliinteedii iyo hogaaminta kala duwan heer kala duwan deegaanka soo martay waa mid su'aal ka keenayaan baahid inaan ka mid ahano xisbiga guud ee talada ee dalka annagoo talada deegaanka aan hayno laakiin xisbiga guud ee talada ee dalka si toos uga qayb qaadan jirin go'aan qaadashada kala duwan ee la soo gaari jiray marka daraasado kala duwan baa la sameeyay daraasadahaas kala duwan shirweynaha EPRDF muddo 6 bilood ka hor ay soo qabteen waa mid lagu go'aamiyay ahayd in la dedejiyo daraasada wada tashiga la dedejiyo ilaa shirweynaha dambena la meel mariyo in xisbi loo dhan yahay dhammaan deegaanada Itoobiya ka kooban ayadoo ururada bahwadaagtana ay ku jiraan la dhiso daraasadaasna waa midaan si buuxda hogaamin ahaan xisbiga dimuqraadiga Soomaalida iyo hogaaminta deegaanka aan ka qayb qaadanay doodeeda aan ka qayb gali jiray marka go'aan qaadashada kala duwan ee lagu sameeyay heer hoosaadka xisbiga iyo barnaamijka xisbigana si buuxda ayaan uga qayb qaadanay annagoo ka turjumayna danta Soomaaliyeed iyo danta deegaankeena waxyaabaha asaasiga noo ah dastuuriga noo ah Soomaali ahaan annagoo ka duulayna ayaa si buuxda uga doodayna heer hoosaadka iyo barnaamijkaba waxaanu ku guuleysanay barnaamijka iyo heer hoosaadkuba inuu u taagan yahay dhammaan shucuubta Itoobiya oo dhan ismaamulada deegaankooda dastuuriga mid si buuxda loo ilaalinayo nidaamka dastuurigana lagu xaqiijinayo xisbigana mar walba uu taagan yahay ismaamulka xaq deegaanada ay leeyihiin Soomaalida ka mid tahay iyo qoomiyadaha kale ee dalkana deegaan oo dhan ismaamulkooda in si buuxda la sii xoojin doono taasi ay noqoto udub dhaxaadka tiirka ah halganka siyaasadeed xisbigu u galayo taas iyadoo la sii xoojinayo haddana dalka guud ahaan ismihiisii inaan si buuxda uga qayb qaadano barnaamij siyaasadeed baa lagu soo qaxay xagga horumarinta xoolo dhaqatada iyo horumarinta deegaanada dib u dhacsan sida deegaankeena oo kale kaabayaasha dhaqaalaha ama ka faa'iideysiga horumarinta dhinaca kala duwan wali farikamo qodna marka taasna in ahmiyad gooni la siinayo xoolo dhaqatadana horumarkooda gaarka ah in wax badan laga qaban doono kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta kala duwan ee kheyraadka dabiiciga iyo kuwa kaleba in xoog la saarayo barnaamijka dhaqaalaha waa mid lagu daray xagga bulshadana ka faa'iideysiga xoolo dhaqatada iyo deegaanada dib u dhacsan in ahmiyad gaar ah la siinayo xisbigu mar walba u taagnaan doono taasna si buuxda laga qayb galiyay waxa kaloo barnaamijka lagu daray in daris wanaaga shucuubta dalka jaarka aan nahay wada noolaashaha shucuubta dariska gaar ahaan Soomaalida oo kale waxaan ogsoonahay qoomiyadaha ugu ballaaran dalka Itoobiya nahay deegaanka ugu ballaaran baan nahay haddana dad walaalaheen baa Soomaaliya oo dhan degan Djibouti degan Kenya degan gobolada Soomaaliya kala duwan oo dhan degan marka in isdhaxgalkaas geeska Afrikana la sii xoojin doono dariska xoog la saari doono kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku furnaanshaha ganacsiga xoog la saari doono marka guud ahaan barnaamijka dhaqaale barnaamijka siyaasadeed barnaamijka bulsho barnaamijka xiriirka arrimaha dibadda waa mid si buuxda annagoo eegayna danta ummadda Soomaaliyeed lagu soo cadeeyay inay yihiin barnaamij u qalma ummadda Soomaaliyeed ilaalinta deegaanka xuquuqda dastuurkana si buuxda u ilaalin doono waa mid si buuxda loo xaqiijiyay heer hoosaadkana annagoo qaybgalkeena go'aan qaadashada dalka guud si wada jir oo xoogan aan ka qayb qaadan doono haddana ismaamulkeena deegaanka ha ahaato magacaabista iyo go'aanada kala duwan ee siyaasadeed oo gaarkaana mid qaab dhismeedka xisbiga gudihiisa decentralization go'aan qaadasho la sameeyay oo aan ku muujinay doodii kala duwaneed lagu xaqiijiyay haddana waxyaabaha yaryar ee concerniga ama dadku ay tabanayaan haddii jirtana waa mid si buuxda annagoo mideysan hogaamin mideysan hadda kadibna si buuxda uga qayb qaadan doono marka annagoo eegayna danaha shacabka xisbiga wuxuu maanta shirweynaha si buuxda uga dooday shirweynaha ka horna odayaasha deegaanka Soomaaliyeed si buuxda uga doodeen uga qaateen
aqoon-yahanka si buuxda u doodan u qaateen xubnaha baarlamaanka si buuxda looga doodsiiyey haweenka si buuxda looga soo doodsiiyey marka qaybaha bulsho kala duwanna waa mid ay si buuxda aan ka qayb galnay doodii laguna afgartay annagoo ilaalinayna nidaamkeena dastuurka deegaankeena ilaashanayna inaan dalka guud ahaan maadaama aan nahay deegaanka ugu ballaaran maadaama aan nahay shacab aad iyo aad u ballaaran karti badanna ku leh saameyn weyn inaan annagoo teeni heesanayno tan dalkana si buuxda uga qaadano xisbigan laisku mideeyey xisbiyadoo dhan oo hal xisbi oo qaab dhismeedka federalismka waa waqsan deegaanadana luuqadahoodii lagu shaqeynayo af soomaaligana uu noqonayo luuqadda xisbiga tan guud ee dalka deegaankana si gooni ahaan luuqadeedii u isticmaalayno af soomaaligana uu noqon doono loo halgami doono inuu noqdo luuqadaha ismaamulka guud ahaan heer deegaan ahaan dastuurkaaba deegaankaaba qeexayo ayagoo taa eegayna marka go-aan taariikheed baan maanu gaarnay go-aankana ummadda soomaaliyeed xoojinta ismaamulkooda ayagoo heesanaya ka qaybgalkooda go-aan qaadashada siyaasadeed dalkana waa mid si buuxda u xoojin doona taasna waxaanu kusii dadaali doonaa midnimada hogaaminta inaan sii xoojino midnimada soomaalinimada inaan sii xoojino soomaaliyeed qabyaalad ama qaab dhismeed qabyaaleed ururo wato dhan waxay macna noo sameynayaan ma jirto waxa weeye ummadda soomaaliyeed midnimo ay u baahan tahay soomaalinimo ay u baahan tahay loo wada dhan yahay laga wada qayb galo marka xisbiga cusub ee si wada jira barwaaqada u dhisanina taasi mid u sii xoojin doono weeye inaan sii hanano sii adkeysano waxaan haysano waxa dheeriga go-aan qaadasho dalka aan ka qaadanayno waa mid sii xoojin doon noqonaysaa su-aashaan waxaa aan joonaya mooyar kusoo ereygan ah matalan magacaabista heer federaalka iyo miisaaniyad deegaan sidaa ay noqonaysaa magacaabista waxaa la yidhaahdo midda labada qodobka inaga maxaa damaanadayno haddaan nahay dadka soomaaliyeed charterka waxay ugu jirto in hal jeer ku dheganay qodobka 9 hadda xusbismeen ku biirayna marka arrinta ku saabsan qodobkii aad ka hadashay ee ahaa magacaabid oo kale xisbiga iyo dawladdu way kala duwan yihiin deegaanka Soomaalidu baarlamaan buu yeelanayaa baarlamaankiisa baa jiraya marka xisbi ahaan waa loo tashanaya oo dalku maadaama hal xisbi leeyahay oo wada hadlaya yaa ku habboon shaqadan waa la isweydiin karaa sida hadda uu qoran yahay qodobka ku saabsan qaabka maamulka deegaanku waxa weeye guddiga la yiraahdo guddiga xiriirinta deegaanka oo Soomaali ah weeye kuwa awoodda u leh inay ka shaqeeyaan arrimaha magacaabidda mas'uuliyiinta deegaanka laakiin waxay kala tashan karaan ama kala tashan doonaan guddiga fulinta ee xisbiga qaran taasi ma aha mid baabi'inaysa federalismka waayo awal sida ay jirtay inagoo oo aan miiskaas fadhiyin haddana talooyinka waa la nala lahaa hadda miiskii taladii baan la joognaa laakiin go-aanka kama dambaysta Soomaalida yeelanaysa tashiguna ma xuma maadaama laga duulayo isku hadaf guud iyo isku istaraatiijiyad guud cabsi keeni karta in aan ku kalsoonaan weyno hogaaminta Soomaalida ee meesha fadhida ma jirto habeeraatee still waa arrimaha kamidka ah in la sii faahfaahiyo oo la sii kala cadeeyo u baahan wax laakiin hadda laga dido habda halis ma jirto arrinta ku saabsan qodobka 39 waxani waa xisbi qodobka 39 wuxuu ku yaalaa dastuurka dalka Itoobiya ku yaala deegaanada maamulada deegaanka Soomaalida deegaanka Oromada deegaanka Anfarta deegaanadu qodobka 39 wali uu ugu jiraa dastuurkii haddii la eego xeer hoosaadka xisbigan qaran ee hadda la dhisayo iyo dastuurkana waxa sareeya dastuurka wadanka sareeya marka ma aha mid baabi'inaysa qodobkii kaasa xiriir ma laha laakiin xisbigan hadda jira waa xisbi waa ku dagaalamaya ama ku doorasho galaya inuu fulinayo dastuurka qodobadiisa dhamaantii wuxuu ka tagayaa ma jiro wuxuu ka tagayo habeeraatee ma jirto hadda waxa laga hadlayaa marka ma aha meen kala xisbi laakiin uu ololeynayaan kala go'no ma xisbi uu ololeynaya oo barnaamijkiisa uu ku qortay aynu kala yaacno aan kala go'no ma waa multinational xisbi waxa weeye qoomiyad kasta ku jirto waa xisbi raba dalku inuu wada joogo waa xisbi raba in maaragtay sinaan lagu wada noolaado laakiin haddii sinaanta iyo waxa la waayo garantiigi wuxuu ku qoran yahay dastuurkii qaranka waxaana arintaasi qacanta ay ugu jirtaa maamuladii dawladaha ee dhisnaa xisbigani mar walba ahaanayo matalanba xisbiga talada haya waa xisbi qasab maaha inaan u fikirno xisbigan inuu noqonayo mar walba ka talada hayna ka soo qaad doorashada ama uu heli ama uu waaya xisbi kasta marka afkaar uu ka duulaa jirta xisbigan wuxuu ka duulayaa wixii hagaagsanaa 30 sanana waan qaadanaynaa
wixii khaldanaana waan saxaynaa waddanku inuu kala tago uma halgamayno inaan waddanka isku hayno in cadifadaha qoomiyadaha ee abuurna iyo dilka socda la soo ururiyaan ka shaqaynanaa buu leeyahay xisbiga wax xiriir la leh ay ka tashigii habeen raatee oo diidan kuma jiro xiroosaadkiisa barnaamijkiisa siyaasadda xiroosaadkiisa labadaba waxay qeexayaan dhammaan xuquuqaha asaasiga dastuurka ilaa ay ka tashiga inay ilaalin doonaan marka xuquuqda dastuuriga shacabka la siiyey xisbiyaal lama siinin xisbiyaashu xuquuqdaas inay ilaalinayaan bay u halgamayaan bay ka dhigan tahay marka saas inaan u kala ogaanaa loo baahan yahay tan kale ismaamulka deegaanka asagaa isu madax bannaan go-aan qaadashada centerkana waa mid anaguna qayb buuxda oo libaax leh aan ka qayb qaadan doono aan sii xoojin doono kalsoonida ugu muhiimsanna waxaa loo baahan yahay deegaankeena deegaan ballaaran weeye shacab ballaaran baan nahay khariidad ahaana deegaanka ugu ballaaran dalka iyaan nahay marka ummad aad iyo aad u ballaaran oo saameyn weyn ku leh dalka iyaanu nahay jiritaanka dalkaaba ayaa qayb weyn ka nahay taas daraaddeed kalsoonida inay badato ma ogi inay cabsida badato maaha aan qabnaa waxaan ka shaqaysay in la samayn doono oo aada loogu baahan yahay dowlad gurti ah oo odayaashii haddii la compromise gareeyo siyaasigii in loo noqonayo gurti haddaan hadda kasoo qaadno waqti dheer baa laystay in dadka laga dhaadhiciyo barnaamijkan lagu kubiritaanka maxaa keenay in dadku ay wareeraan oo marka uu shirki guddiga ka dambeeyay UPRD in hal mar dadka intu soo boodo ku noqoto adinkoo shalna isla markiiba guddi dad gashaan aadan sikisaan golaha gurtida la samaynayo marba haddii xisbi heer qaran wax looga tashanayo oo si guud Ethiopia kula qaybsanayo ahmiyad uu yeelanayo maxay noqonaysaa su-aasheeda labaad waxaa weeye dhulbeereed ballaaran oo deegaankeena aada u ballaaran ayaa jira waxaana la sheegaya inuu ra-iisul wasaaraha leeyahay madamarka markuu ka faahfaahinayay dhulbeereedkaas oo kale yuuriyadaas inay dadka deegaanka ku nool deegaamada qaarkood aysan aada uga faa'iidaysan dadka buuraleyda ah ee waxa weeye waqooyiga Ethiopia ku noolna inay dhulbeereedka aada ugu yaryahay annagu og dadkeena dhaqankooda ku aadan hawsha iyo sida beeraha iyo ugu ma la isdhihi karaa dad qoomiyada kala ah oo meel ay beertaan hiigsanin oo beerashada looga cilmi roon u baahan iyo imaan doona maadaama la iswada qaatay oo wada jir waxa wax loo wada qaybsada Ethiopia lagu beeray mid labaad dadka bulshada waxay aad isma dhex marayaan guddiga fulinta maalinta bulshada iyo kala guddoomiyaha inuu ka maqnaa muxuu asagoo dalka gudihiisa jooga muxuu ku maqnaa ma cabsi dhexdiina hajirtaa la leeyahay bal arrintaas noo faahfaahaya arrinta guurtidu doodii socotay ka soo dhex baxday mooye arrin xisbigan damaanad looga dhigay oo daba soconaysa ma ahe waa arrin masiirka ummadda Soomaaliyeed bisideedu ay isaga baahan yahay hadda ka horna waa la hadalay maadaama hadalhaynteedu maanta soo baxday macnaheedu ma aha in arrintan xisbigan la midowga ay qayb ka tahay guurti waxaan ugu baahannahay maadaama segmentary society aan nahay bulsho qabaa'ila oo u baahan in la xaliyo khilaafaad fara badan awoodda dawliga ah mararka qaarkood in lagu fudiyana ay ka wanaagsan tahay in awoodda kale ee traditional conflict resolution mechanism in la maro ama qaabka dhaqanka ee lagu xalinayo dhibaatooyinka inagoo ka duulayna duruufo inaga inoo gaarana ay tahay in guurtidaasi ay qaadato kaalinteedii koow isku soo dhaweynta dadkii Soomaaliyeed yareynta cadifada qabaa'ilka kala dhexgelidda arrimaha maaragtay colaadaha ku salaysan dhulka iyo wixii la xidhiidha inay hawsha qaadato dhinaca kale inay noqdaan kuwa iyagu maadaama oo ay ahaayeen taariikh ahaan halganadii la soo galay odayaashu kuwa hormood ka ahaa inay noqdaan haddii lacala ay dareemaan in siyaasiyiintii iyo hogaamintii ay ka leexdeen waddadii inay noqdaan kuwa iyaguna shacabka difaaca u noqdee u hadla arrintaa weyn xiriir lama laha xisbigan inaan ku biiro iyo inaan ku biirin haddaan ku biiray haddaynaan ku biirino mid aan u baahannahay weytaas doodaas wey ta la xidhiidha maxaa loo wareeray waxaa loo wareeray maadaama ay jiraan dad in la wareero rabaa kow ta ugu horreysa waayo dad in la wareero rabaa waxay noqon karaan dad siyaasado ujeeddo siyaasadeed kale arrintan matalanba yaan nagu biirin waa la niliqaya hadal iminka aad tiri baa jirta Ismaaciil ahaan waxaad tiri maadaama hadda Ethiopia aan ku biirayno Ethiopia hadda kuma biirayno waan ka mid ahayn waan fahmayaa sad wado Ethiopia waan ka mid ahayn hadda kuma biirayno kow xisbigan hadda aan ku biirayno saamigii aynu ku lahayn centerka maadaama aynu ka maqnayn miiska aynaan fadhiinba go'aano la soo karkariyay oo laynoo keeni jiray meeshii lagu wada hadlayay go'aanka lagu qaadanayay aan fadhino ugu yaraan waa faa'iido soo kora dhiban qabaano haddii hogaaminta lagu kalsoon yahay hogaaminta halkaas waxay ka soo jeedin kartaa
dareenkii shacabkii soo jeedin kartaa arrimahaad ka hadlayso dhulbeeraadka in fact hal bay u noqon kartaaba meesha dooda lagu soo qaado inaan fadhino oo jijiga marka la keeno inaan kaga hadline halka dooda lagu soo qaado inaan gacanta ka taagno nidhaahno arrimahaas iyo arrimahaas shacabka noo dareenkaas ka qaba inaan iyo qayb ka noqonaysa waxaan ka garaabayaa su'aasha ah haddii aynu centerkii tagno masiirkeennii iyo wixii aan gacanta inoogu jiray ma inaga baxayaa weeyaan ma inagama baxayo sidii uu gudoomiyuhu ka sharxay inagama baxayo arrimaha dhulka oo kale barnaamijkii u dambeeyey hadda ee baasha waa laga saaray arrimaha dhulku waa arrimo u baahan negotiation wada hadal buu u baahan yahay dowladaha ka wada hadlaya dowladda federaalka iyo dowladda deegaanada ka wada hadlaya arrin xisbi u taalla maaha xisbigu wuu odhan karaa matalan meel kasta waa in la wada beerta odhan karaa laakiin xisbi ma aha wax go'aan ka gaaraya dhulka dowlad baa maamulaysa marka maamulada deegaanadu mar haddii jirayaan baarlamaanadu ay jirayaan arrin cabsi horle oo awal aan jiri jirin hadda ay soo geli karto haba yaraatee ma jirto waxaa loo wareeray arrinta ku saabsan dana siyaasadeed dad kale baa jira dad jahwareyn rabaa jira dad ula kac waxyaalo propaganda fidnayaa jira dhinaca kale waxaa iyaduna jirta in maadaama oo hawshan si degdega loo dhaqaajiyey duruufaha waddanka ka jira awgeed colaadaha la abuuraya awgeed maadaama hawshan dhaqso loo dhaqaajiyey dadku ay qaardareensanayeen waqti ku filan lama siin laakiin go'aanka aad leedahay matalan ba go'aanka xisbigu intuu fadhiistay buu qaatay maxaa matalan ba shacabka lagu soo gudbin waayey dee xisbigu fikirkiisa waa inuu mideeyo marka hore guddiga fulinta iyo golaha dhexe oon ka wada hadlin maxaan shacabka u gudbinaa oo jaantaar rogan ay tahay oo nin waliba fikir gaara uu qabo shacabku maxaa laga doodsiin lahaa waxay keeni lahayd wareer iyo buuq fadba bay keeni lahayd marka go'aan in la fadhiisto oo la yidhaahdo bal horta inagoo guddi fulin intaan fikirka ururino maxaynu dadkii ula taagnaabaa la isweydiiyey mooye go'aankama dambaysa lama qaadan haba yaraatee go'aankama dambaysta wuxuu ahaa kii maanta dhacay ee ay ka horreeyeen kulamadii xisbiga dimuqraadiga soomaalida guddigiisa fulinta golihiisa dhexe aqoon-yahankii odayaashii xubnihii baarlamaanka qaybihii kala duwan ee bulshada ugu dambayntiina shirweynihii baa loo keenay marka waxaan qabnaa annagu inaan nahay xisbiga keliya ee broceskii ugu muhiimsanaa wakti intuu qaatay shacabkiisa kala tashaday saxaafadda kala hadlay soo bandhigay halkaana kuma istaagayso waa in la sii wado wacyigelinta ilaa hoos la gaarsiiyo aan odhan lahaa waa mid aan si wada jir u qorshaysanay shaqo kalaan lahaa si wada jirna waan u go'aaminaa shirarkii iyo go'aanadii si midaysan danta soomaaliyeed ku jirto iyaan ku wadanay waxaaba yaraatee khilaaf ama dhibaato ka jira ma jiraan taas inaad ogaataan balloba way dhacaan marmar inaanan imanin gudoomiye ku-xigeenku mar haddaan maqanahay si buuxda u hogaamin karaa waa midaan ka wada tashananay mar walba aan ka wada soconay waxaan kaloo ku daray qorshaha horumarinta xoolo dhaqatada ama masnooyinka loogu talagalay ra-iisul wasaaruhu uu soo jeediyey ma aha qorsho cid kale inta deegaanka laga keeno deegaanka la dejinayo marnaba taas in khalad laga turjumo maaha waxa weeye masnooyinka dhalinyarada deegaankunbaa looga faa'iidaysanaya deegaanka iskale maamulka dhulka dastuuriyan deegaanka iskale maamulada dhulka taasna waa mid la soo xojin doono marka deegaan kale cid la keenayo deegaanka la dejinayo haba yaraatee qorshe noocaas ma qabo ra-iisul wasaaruhu wuxuu aaminsan yahay deegaanka soomaalida lafdhabarka horumarinta dalka inay noqoto lafdhabarka xiriirka geeska afrika inay noqoto maadaama deegaanka soomaalidu deegaano badan daris leeyahay khayraad badan oo ballaaran uu leeyahay shacabkiisa oga faa'iideeyo ma ahe haba yaraatee shacabka in la dejiyo qorshe noocaasna ma jiraan in si khaldan loo turjumana khalad inay tahay inaad ogaataan oo saxaafad ahaan aad arrintaas ka saxdaan baa la baahan su-aasha la xidhiidha in wacyigelinta ilaa hoos loo dhaadhiciyo oo si ballaaran barnaamijka siyaasadeed iyo xeeroosaadka xisbiga looga doodo waa fikir aad u fiican annaguna waan qabnay fikirkaas balse daraasaadkii lagu sameynayey midowda axsaabta ururka e p r d f iyo axsaabta baawadaagta maadaama waqti badan qaadatay daraasaadkii markii la dhammaystirayna marka hore mabdi'iyan in loo baahan yahay in la midoobiyey in kale in laga dooday ahayd doodaasna waqti bay qaadatay kadib marka mabdi'iyan la isla qaatay in hal xisbi oo qaran la sameeyo waxaa la gudagalay diyaarinta barnaamijka siyaasadeed arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo dibaddaba taasna waqti bay u baahnayd xeeroosaadka in la diyaariyay ahayd diyaarintii barnaamijka iyo xeeroosaadka xisbiga markii la dhammaystiray ayaa isla markiiba hogaaminta loo bandhigay dhinaca kale ururka e p r d f iyo axsaabta bahwadaagta la-aba waxaa u qorshaysan barnaamijka cusub in doorashada lagu galo maadaama barnaamijkii hore ururka e p r d f uu shacabka ka gadmi karin uu u suurto gelinayn inay doorashada ku guulaystaan saas darteed barnaamijkan cusub oo isagu
waxqabadkii wanaagsanaana sidii loo sii xoojin lahaa dhigaya isla markaana dhaliilihii jiray tabashooyinkii shacabkana sidii loo sixi lahaa jawaab loogu heli lahaa si cad u qeexaya sidoo kale fursado cusub in loo abuuro jiilka dambana qodobo muhiima lagu cadeeyay kolka barnaamijkaas in doorashada lagu galaa la rabaa sharciyeynta xisbiguna mudday qaadanaysaa kolka iyadoo lagu xisaabtamayo geedi socodka loo marayo sharciyeynta xisbiga cusub iyo isla markaana barnaamijkan cusub in doorashada 2020 ama 2012 sida tirsiga Ethiopia in lagu galo waxaa laga maarmaan noqotay in la dedejiyo kolka taasa keentay barnaamijka iyo xiroosaadka gashiyada muhiimka ee laga helay fagaarayaashii aynu diyaarinay mustaqbalkana dooda heer qaran baanu geynin doonaa insha Allah waxaan ku dadaali doonaa in lagu daro laakiin su'aasha la xiriirta arrimaha dhulka iyo khayraadka waxa muhiim ah in si cad loo ogaado waxa la midaynayo waxa weeye afkaarta barnaamijka siyaasiga ah barnaamijyada arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda ee wadankan lagu hogaaminayo in la mideeyo way kuwaas la mideynaya deegaan kasta iyo qoomiyad kasta dhulkeedii iyo khayraadkeedii inay kuwa kale ula tagto oo si siman looga wada faa'iideysto mahmidow kolka taa waa inay clear noqoto waxa damaanadii noo ah dastuurka dhulka deegaanka Soomaalida shacabka Soomaaliyeed baa iska leh khayraadka deegaanka Soomaalida shacabka Soomaaliyeed baa iska leh taas dastuurku sida looga faa'iideysanayo iyo wixii la wada leeyahayba ee la wadaagay si cad buu u qeexaya kolka afkaarta wadanka lagu hogaaminayo baa la mideynaya khayraadkii iyo dhulkii iyo wixii oo dhan la isku darsanayo oo aan wada yeelano lama laha kolka taa waa inay clear noqoto shacabka Soomaaliyeedna waa shacab baraarugsan oo dantiisa garanaya dantiisa ka shaqeynaya wax kasta oo xuquuqda dastuuriga ee shacabka Soomaaliyeed loo sugay wax lid ku ah shacab aqbalaya maaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida hogaamintiisa iyo dhammaan qaab dhismeedka dawliga ee dawladda deegaanka Soomaalida hogaaminta iyo shaqaalaha ku jiro dhan arrintaas way ku baraarugsan yihiin arrin wada jir haddii xitaa isku day aw yimaado wada jir loo difaacayo ayay noqon doontaa xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu ducaan ku xambaarinay xilka dadku